بسم الله الرحمن الرحيم. أولا السلام عليكم ولا لهيga soo dhawaada insha Allah maanta waxaan rabaa diirada waxaan noo saaran xulbada run ahaantii xulbada waa geed aad u qaali ah waxaa lagu daaweeyaa xanuuno aad u fara badan ayaa lagu daaweeyaa faa'iidooyin badan way leedahay walaalahayga qaaliga soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada niyad fasaami ku soo dhawaada insha Allah hadaa nagu cusub tahay please gambaleelka saaro subscribe ne noo saar waa mahadsan tahay like iyo share comment waa dhankiina idin ma sheegay taas insha Allah walaalahayga qaaliga soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaadba sidan hore idinkugu sheegayba maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo insha Allah xulbada run ahaantii faa'iidada xulbada wax la soo koobi kara ma aha iyo wax video laba inta lagu koobi karo laakiin waxaan rabaa waxyaalaha ugu muhiimsan ama faa'iidooyinka ugu muhiimsan ee qabato xulbada inaan ka hadlo horta xulbada waa miro faa'iidooyin badan leh waxaa ka buuxo ama waxaa ka mid ah faa'iidooyinkeeda waxay leedahay protein sidoo kale waxay leedahay nafaqooyin kala gedisan sidoo kale xulbada waxaa ku jira maado la yiraahdo phosphorus maadadaas waxay muhiim u tahay jirka sidoo kale waxay hoos u dhigtaa xanuuno badan waxaa ka mid ah xanuunada lafa xanuunka oo kale dadka uu lafaha xanuunayo xulbada hoos ay u dhigtaa sidoo kale waxay ka hortagtaa wax la yiraahdo osteoporosis waxaa laga wadaa lafaha inay jabaan badanaa waxaa lagu arkaa dadka waaweynka ah dadka markay duqoobaana lagu arkaa ama islaamaha markay weynaadaan oo caadada ay ka go'do ayaa inta badan lagu arkaa marka xulbada taas ayay ka hortagtaa sidoo kale cilmi baaris la sameeyay waxaa lagu ogaaday xulbada halkii qaando oo xulbad inay ku jirto faa'iidooyinkan soo socdo waxaa ku jirto 6,000 oo miligram oo carbohydrate ah sidoo kale halkii qaando oo xulbad waxaa ku jirto 4,400 oo miligram oo protein ah waxaa kaloo ku jiro 900 oo miligram oo dufan ah sidoo kale waxaa ku jiro halkii qaando oo xulbad ah 395 miligram oo calcium oo lafaha dhisayo sidoo kale waxaa ku jira 51 miligram oo phosphorus ah waxaa kaloo ku jira halkii qaando oo xulbad ah 1.99 miligram oo bir ah sidoo kale waxaa ku jira energy u dhigmo 49 kilocalorie hal qaando oo xulbad ah kaliya intaas ay u dhigmataa haddaba xulbada maxay daaweysaa xulbada waxay daaweysaa xanuuno badan ayay daaweysaa kow xulbada waxay kor u qaadaa ama ay sare u qaadaa cunno qaadashada dad badan waxaa jira oo dheefshiidkooda aad u liito dad badan waxaa jira appetite-ka ka xiran yahay dad badan waxaa jira cunno xumi ee hayso xulbada waxay kor u qaadaa dheefshiidka ay kor u qaadaa qofkana wuxuu si sahal ugu fududaato inuu cunto badan qaato ama cuntadiisii u saxmato labo xulbada waxay hoos u dhigtaa subaga xun ama kolestaroolka dadka qaar jirkooda wuu ku bataa hadduu bata dhibaato keenaa hadduu yaraadana dhibaato keenaa marka xulbada way dheelitirtaa sidoo kale dadka kolestaroolka qaba ama kolestaroolka uu ku badan yahayna hoos ayay u dhigtaa sababtoo ah kolestaroolka waxaa la rabaa normal inuu ahaado faa'iidada saddexaad xulbadu waa xanuun baabi'iye waxay u dhigmataa booska beristimolka xanuun hadduu ku qabto ama madax hadduu ka xanuuno ama meel kale haddii ku xanuunto intaad kaniini dalban lahayd xulbada isticmaal khaasatan gabdhaha caadada qabo aad ay ugu fiican tahay waa xanuun baabi'iye faa'iidada afaraad xulbada waxay kor u qaadaa hamiga ragga faa'iidada shanaad xulbada waxay siyaadisaa caanaha naaska hooyooyinka qaar markay dhalaan naaskooda caano ma laha waxay dhahayaan ilmo caano ah siiya male caano booro ayay ku bilaabayaan runtii naas nuujinta hooyada waliba 6 bil ugu horeysa waa muhiim waana daruuro marka hadduu naaskaaga caano lahayn xulbada isticmaal si cunugaaga uu dheef u helo uu naasihii caano u yeeshtaan faa'iidada lixaad xulbada waxay u fiican tahay dadka neerfa xanuunka qabo waxaa jira dad badan oo neerfa xanuunayo ama maskaxda in badan ka cabto marka insha Allah xulbadu ku dadaal faa'iido ay ku leedahay faa'iidada toddobaad xulbadu waxay ka hortagtaa kansarka noocyo badan ayuu leeyahay waxaa ka mid ah kansarka minka ku dhaco sidoo kale waxaa ka mid ah kansarka ku dhaco waxaa ka mid ah kansaro badan ayaa jira kansarka dhuunta kansarka caloosha meel walba xubin walba oo ilaahay uumay kansar ayaa ku dhaco xulbada kansarada oo idil hal kansar kaliya dhammaan wixii kansar ah xulbada daawo ayay u tahay sidoo kale xulbada waxay u dhigmataa antibiotic oo kale
waa jeermis dile wayna la dagaalantaa weliba jeermiska ay ka hortagtaa wayna dishaa. haddaba qaabkee loo isticmaalaa ama qaabkee loo sameeyaa? waxaan soo aragnay xulbada maxay daaweysaa oon kasoo sheegay dhowr iyo cudur, sidoo kale faa-iidada xulbada ku jirto oo runtii aada u tiro badan oo wax badan aan kasoo sheegay. haddaba qaabkee loo sameeyaa ama qaabkee loo isticmaalaa? xulbada horta waxaa jirto xulbo budo ah iyo waxaa jirto xulbad qoyan. runtii qaabka loo sameeyo xulbada waa idinkaga hadli doonaa insha allah. midda koowaad, xulbada waxaa loo sameyn karaa 2 qaybood. midda koowaad waxaa waaye waa inaad karkarisaa kadibna aad cabtaa ood biyaha ka miirtaa. qodobka labaad, miraha xulbada yacni xulbada waa miro waa mid miraha xulbada waxaa la dhigaysaa biyo 12 saac inka badan, kadibna waxaad kula shiidaa 1 xabo oo toon ah, waxaana kula dareysaa biyaha sanjabiilka ah, kadib waxaa ku dareysaa 3 koob oo ama 3 xabo oo timir ayaa ku dareysaa, kadibna kula shiid caano geel ama caano lo, kadibna kala miir oo waxaad cabtaa caanaha. labadaas qaab ayaa loo isticmaalaa. laakiin waxaa jiro qodob muhiim ah oo aan rabo inaan idinkaga digo. wax kasta oo faa-iido leh dhibaatana way leeyihiin. dadka qaar ma isticmaali karaan. tusaale ahaan hooyada uurka leh xulbada ma isticmaali karto, sababta oo ah xulbada waxay soo aruurisaa minka ay soo aruurisaa, waxayna ku sababi kartaa hooyada uurka leh ilmaha inay kasoo dhacaan. marka haddaad tahay hooyo uur leh ha isticmaalin. markaad dhashay kadib isticmaal si caanaha naaska kuugu bataan, si wasaqda iyo dhiiga kaaga wada imaada insha allah. laakiin haddaad tahay hooyo uur leh xulbada ha isticmaalin walaalahayga qaaliga ah. wax walba faa-iido leeyihiin sax, laakiin lama isticmaali karo. hooyo uur leh xulbad lama siin karo, mana wanaagsano, caafimaad ahaan uma wanaagsano. laakiin hooyada markay dhasho way isticmaali kartaa si caanaheeda naas badan u helo oo cunugeedana uu u noqdo cunug qurux badan, koriinkiisana u dhamaystirmo, uuna u noqdo cunug ficiska weyn. run ahaantii wax yar waxaan rabaa inaan u jeesto naas nuujinta. muhiim waaye, sababta waxay muhiim u tahay cunugan wax kale uu qaata ma laha. caano booro wax uma taraayo. sababta waxay tahay cunuga dheefshiidkiisa maba la qabsanin caanahan. caano booraha cunuga dheefshiidkiisa lama qabsanin. in badan ee soomaalida ayaa u badan waxaa arkaysaa cunug yar oo la dhahayo wuu shubmayaa, caloosha laga hayaa. cunugaas wax kale dhib kale ma qabo, keliya waxaa waaye naaska hooyadiis ayaan la siinin. waa cunug caano booro lagu daldalay. maxay caloosh u xanuuni weysay? sababtoo ah cunuga dheefshiidkiisa wuu yaryahay, weli lama qabsanin waxaan banaanka ka imaanayo. marka insha allah hooyooyinka ku dadaalaan inay ilmaha naaskooda siiyaan. haddii naaskooda caano lahayn xulbada ha ku dadaalaan. xulbada ayada aad ugu wanaagsan insha allah. laakiin inta ay uurka leeyihiin ha iska ilaaliyaan, sababtoo ah ilmaha ayay kasoo ridi kartaa. xulbad hooyo uur leh lama siiyo, waa mamnuuc. walaalahayga qaaliga insha allah cashirkeena maanta wuxuu ku saabsanaa xulbada iyo faa-iidooyinka laga helo. waan filayaa inaa idinka qanciyey ama idinka haqabtiray ood ka faa-iideen insha allah. walaalahayga qaaliga ah waxaan rabaa janaalkan in ii sheegay subscribe badan aad saartaan, like aad saartaan. runtii daawashadiisa iyo subscribe-kiisa isma laha. marka insha allah walaalaha qaaliga idinkoo mahadsan haddaa noo daawato subscribe-ka noo saar. waxaan kaloo idinka codsanayaa in aad sheergaraysaan, haddii ahaan lahayd Facebook, haddii ahaan lahayd WhatsApp, haddii ahaan lahayd imo, haddii meel kasta ood ku sheergarayn karto inaad ku sheergarayso. qasab ma aha, laakiin waa codsi insha allah. sababtoo ah waxaan u faa-iideynayaa waa bulshadeeda Soomaaliyeed. hadafkeyga ma aha wax kale. hadafkeyga kaliya wuxuu yahay cilmiga oo ilaahay isiiye alxamdulilah in aan bulshadeeda uga faa-iideeyo. run ahaantii adi maanta haddaada u baahnayn cashirkan ama uu ku khuseynin, waxaa jiro dad kale oo walaalaha oo ku dhiban ama u baahan, ama xulbada hadda aan ka hadlay tusaale ahaan cuduradan isaga daaweyn lahaa. marka insha allah u sheergareeya walaalahayga qaaliga. waa mahadsantihiin. soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaadba asxaabtan ugu cusub aaday u mahadsan yihiin. soo dhawaada, soo dhaweyntiina kama daalo. asxaabta horena aaday u mahadsan tihiin walaalahayga qaaliga. insha allah cashirka ku xiga wuxuu noqon doonaa cashir xiiso badan. toobiga markaan soo diyaarinayo run ahaantii waan ka fikiraa, in badan ayaan ka fikiraa. sababtoo ah waxaan uga fikiraa waxay tahay wax bulshadeeda anfici kara oo aan isleeyahay maanta allaylahay mawduucaas baahi ayaa loo qabaa, ayaan mar walba soo bandhigaa. waan filaya inaad ka faa-iidi doontiin insha allah. wixii talay tusaale ahna qaybta commentiga inoogu reeba. wasalaamu calaykum waraxmatullah.